maxay kuula muuqataa waxaan arkaynay maalin dhaweyd waxaan arkayay master khayre oo runtii lacagihii iyadoo laga shirayo oo wadanka lagu qabtay niman kaamirad kor saaran weeye waxay raadinayaan mustaqbalka 100 sano not maanta 2 sano u dhiman ma aha 100 sano oo future-kii waa niman ku xisaabtamaya inay maanta dalka Soomaaliyeed ay u hiiliyaan muu aragtaa 40 bilyan ee loo bariyayo oo dadka ballan qaadeen runtii ma habboontaa inay galmudug ay isku xanaajisa lacag ku soco horta jija waad maasan tahay hadalkaada macaan maana suguweyn waxaa jirta meeshaani siyaabooyin aad u kala badan oo dadba hadda maalin dhaweyda Somaliland markay ogaatay xaqiiqdii ogaatay ee wax walba ogaatay Geneva la isugu yimid waxay runta muujisay si dadnimo iyo Soomaalinimo iyo gooni isu taag inaysan waxba faa'iido lahayn oo aad u raali dadkaada aysan kaaga ahayn okay meeshan waxaa taagan maamul goboleedyo aad u waaweyn oo ilaa waqti jiray oo ay ka mid tahay Somaliland ay ka mid tahay Puntland wayna ayidsan yihiin in dowladii laakiin galmudug ayadiyo dowladda ku dhabar ah oo ku muuqaf ah oo ku dad ah inay jira haddaanan akoonkeena annagana wax nalagu shubayn wax shaqaynaya maaha wax socon karana maaha waxayna taas ay dhabarjab ku noqonaysaa maamulka galmudug wax weyna ay u dhimi doontaa aan qabaan ugaagahantii aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan jeclaan lahaa inaad mar kale igu soo celisid adigoo mahadsan waxaan rabaa nin siyaasi waxaa qaadaan leeyahay nin Soomaaliyeed oo siyaasi isku sheegay uu yiri kaamirada waa ka hadli aqaanaa wax walba waa hordhigi karaa laakiin nasiib wanaag naqday nin aan runtii murti badan xambaarsanayn marka ninkaasaan rabaa codka Soomaalida inaan dhageysiyo kadib igu soo celi adoo aad u mahadsan amba waa ku soo wacaya aad baan kaaga mahad celinayaa okay waad mahadsantahay jija 14 boqolka quraanka okay thank you waxaan rabaa inaan dhageysano markii la noqdo qof kastaba anaa siyaasi ya waxa siyaasi ka dambeeyo aan aragno qofka micno ma sameynayso tushaariis waa soo qaatay wariye $100 siiyay meel ku fadhiistay idaacada lagu soo qaatay micno ma sameynayso laakiin micno waxa sameynayso erayada uu qofka ummadda Soomaaliyeed markuu hortaagan yahay uu leeyahay erayga qofka maanta Soomaaliyeed hortaaganta aan leedahay waa mid runtii ummadda Soomaaliyeed ay aqoon iyo fikir iyo waaye arag ay kaaga qaadanayaan waa inay noqdaan waa inaysan naqan waxa aad ummadda u horseedaysid ama ummadda aad la wadaagaysid waa inaysan noqon jeeb maran maanta haddii dowladda lagu cadaaliyo ama madaxda dadaalaysa lagu geesa garaacdo oo loo isticmaalo in lacag laga helo marka bal ila wadaaga ila dhageysta this person ya siyaasi ay magaciisa ila wadaaga inkastoo aan wariyaha runtii aad aan u salaamayo wariye xaq runtii muwaadinimada ay ku leedahay ka soo baxay weeyaan leeyahay marka loo fiiriyo oo laga tago baarlamaanka iyo isla xisaabtankooda xukuumadda ay ku leeyihiin ra'iisul wasaare isaga doorkiisa talaabadan uu qaadayo mid sax ma tahay marka loo fiiriyo sharciga qaanuun maya ra'iisul wasaare xaq uma lahan golihiisa wasiirada iyo xafiiska wasiirada inuu ula dhaqmo sidii arday quran uu control uma dhaqmo hadduu saa xafiiska uu control ma istaahila kan inaan sii dhageysto I don't need inaan sii dhageysano because waa nin Soomaalinimada iyo meesha la taagan yahay iyo meesha loo socdo iyo ra'iisul wasaaraha wixii loo igmaday runtii ka dhinacsan waaye qofka waxaa fiican inay aqoon celiso u lahaado ama aqoon ku celiso inaad lahaatid ama dadku wax kaa celiyaan Bersembio wuxuu yiri siyaasi baan ahay horta ra'iisul wasaaraha maxay tahay
wuxuu maanta ra-iisul wasaare dalka uu ku yahay ra-iisul wasaare waxaa loo sameeyey in xukuumadda golihiisa wasiirada in uu wax walba oo runtii shaqada ah inuu kula xisaabtamo wuxuu ku leeyahay arday qur-aanka camal buu u isticmaalayaa wasiirka usoo dacwooda asaga ee kala hadlay ee yiri ra-iisul wasaaraha dhib inagu hayo ma jiraa waa maya marka fadlan adiga oo awaal iyo been ku hadlaysid runtii ma fiicno ummadda Soomaaliyeed inaad soo garab istaagtid aniga waxaan mar kastaba fiirsadaa golaha wasiirada programkooda mar kasto waxa waaye waan duubtaa xataa caruurteyda ii duubto runtii wasiir ka xun weligay ma arkin wasiir aan farxad runtii aan lahayn ma arkin marka meesha uu ku keenay ninka arday quraan camal buu ula dhaqmaa runtii intaad miidiya imaatid adigoo nin ah ya surwaal iyo shaatiyo waa iska bacday ma dhahnaa ya war siyaasadda iyo aqoonta ceeb ma aha in la korarsado war anigu waxaan idin leeyahay dadkeenna Soomaaliga ah kanoo kale waa inuu wax akhriska aad u badsadaa because qof walba qofku wax ka akhris badan yahay wuxuu ka helaa natiijada wuxuu ka helaa waxyaalaha resultiga uu ku hagaagi kara asaga iyo ummadda dhageysanaysaba u daawo u noqotaa laakiin qofka umlaa markuu yahay qofku markuusan aqoon celisi usan lahayn qofku markuusan lahayn runtii wax laga xishoodo ninkan waa la soo adeegsaday ragaa soo adeegsaday raggii soo adeegsaday warqad bay ugu soo qoreen waxay dhaheen adaa dhihi kartida dheh 2 kumiyuu soo qaatay marka waa nin darajadiisa iyo sharaftiisa iyo qiimihiisaba ahba labada beri oo hoteelka wax uu ka isticmaalo iyo akoonkaas wuxuu dhowr beri ka casheeyay marka ummadda Soomaaliyeed ma qiimaha hal qof casheynaya miyay noo noqonaysaa siyaasiga ma dhageysan karnaa siyaasiga nooca ma siyaasi ka casheynaya aba ka qadeynaya miyaan dhageysan karnaa haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed kaasoo kale waxaan dhihi lahayn waxba yahow orod muddo dheer wax soo aqri asaga iyo raggii aan u diri jiray inay wax badan wax aqriyaan ayaan la meel dhigayaa waaba hadduu wax aqrin karaba marka asaga badiisi waa kaga baxayaa waxaan rabaa caawa hadalla runtii waxaan adeegsanayaa aad u kulul idinkoo aad u mahadsan caawa ereyada iga soo baxaya waa ereyo runtii shuxuurteyda la socoto aad baan idin soo dhaweynayaa markaan dhammaysto qofkii u baahan gacanta ii soo taago wuu ila wadaagayaa laakiin haddii aad tahay mucaarad haddii aad tahay dadka aan waxaa ka hadlaya nin u hadlaya haddii aad tahay fadlan waa kugu jirayaa waayo ma doonayo qof runtii aan daahir ahayn inuu runtii bagayga uu igala mid noqdo anigu waxaa ila mid noqon kara kan fikirka Soomaalinimada iyo xalaasha ku korsan kan daacadda iyo Soomaalinimada u dhimanaya kaas ayaa xalaasha ila ah waxaan rabaa inaan idin weydiiyo nin media markaan soo galaba aan asaga oo aan wax ka sheegin aana ka bixin waxa weeye Neef Shakuur walaalayaal Neef Shakuur 28kii bagiisa ilaa iyo shalay wuxuu soo dhigay dowladda buu yiri qoraal uu soo qoray uu ku dhici waayay inuu hadlo ma fahad qoraal uu soo dhigay walaalayaal wuxuu yiri dowladda federaalka ah waxa loo baahan yahay al-shabaab inay la dagaalanto isbartiibo iyo dhalinyarada iyo waxa iyo isbartiibada iyo uniformka oo laga saaraya necessary ma aha waxa waaye qofka adduunyada inuu wax cuno wax cabo waxaa ka fiican inuu wax cuno wuxuu cuno ku fikiro wuxuu cuno yani plan ku dejiyo marka Cabdishakuur haddii aad aragteen waa nin sida bini aadanka ah
sida bini aadanku u koro ninaan u korin waayo qofka runtii overweightka naqanaya soomaalidu waxaan dhihi jirin overweightka waa laba ciladood waa cilad xanuun bini aadanka jirkiisa ku jira oo cuntada aysan ka keenino biyo hadduu cabo iska cayilayo waa xanuun rabbaani oo ilaahay u keenay iyo waa qof aan maskaxiyan iyo body iyo dhinac walba aan dhisnayn waaye markaad cuntidoo iska fadhiisatid markaad ku shubtidoo iska fadhiisatid walaalahay waxaa noqonaysaa wax sida cabdishakuura u ekaanaysaa laakiin ninka cuntadiisa vitamiinka organikada cuno ee fikiro ee shaqeeya ee sida farmaajo sida khayre sida nimanka kale ee siyaasiyiintii hore ahaa ama xasan sheekh ama maxaa la sheekh shariif yani waxaa arkaysaa nin boodhigiisa dhisan madaxweynihii xataa kasii horeeyey cabdiqaasin soo qaado cabdiqaasin markaa aragtid waxaa ku qabanayso runtii soomaalinimo kan markaad dhegaysatidna runtii adigoo carab dhegaysanayay la mid tahay waayo qofka carabka ee cadowga imaaraad adoo dhegaysanayay la mid tahay imaaraad haddaa rabtid inaad ka dhegaysatid cabdishakuur dhegayso erayada uu xambaarsan yahay sida uu u hadlayo waxa weeye imaaraad waaye ma fahan laakiin cabdiqaasin markaad dhegaysatid waxaad dhegaysanaysaa aabbo soomaaliyeed oo sharaf leh oo waddanka soo hogaamin jiray ilaa iyo 80 something wasiir kasoo bilaabay madaxweyne noqday yani dhinac walba noqday ma fahanta laakiin cabdishakuur wuxuu ku yiri maanta wuxuu soo qoray maalmahan soo qoray wuxuu yiri isbirtiibo maxaa la dhahaa isbirtiibada maanta banooniga yaa istaadii koonigii wuxuu dhahay muhiim maba ahaynba muhiim maba ahaba inay dowladda isbirtiibo iyo banooni iyo waxaa inay ku mashquulsha maba ahaynba haye cabdishakuur maxaa lagu mashquulaa because arjac sida carabta u fikirto waayo sida imaaraad u fikirto u fikiraano imaaraad waxay loo diidan yihiin walaalayaal dhalinteena iyo meesha maxabada iyo jaceylka iyo farxadda ay nooga soo bilaabato uu ninka imaaraad noo diidan yahay ma fahan laakiin ninka siyaasiga ee ninka siyaasi aan dhihine ninka cadowga ee cabdishakuur la socdo sida carabta ee yani carabta u hadal yaqaanaa sida carabta u hadasha markuu qofka yaqaano dabcan sida carabti buu rabaa carabti baa qalbiga carabti baa waxay leedahay ma aha inaa banooniga dheeshiin ma aha because waxay ogyihiin inaan caalamka la mid noqonayno inaan physical iyo maskixiyan dhismayno waxay ogyihiin inaan wiilashaan hadda oo qoriga ee u dhiibanayaan ay lacagta siinayaan way dhammaanaysaa wiilka wuxuu jeclaanayaa inuu noolaado ma fahantay walaashay iyo walaalkay wiilka maanta muqdisho jooga ama wiilka soomaaliyeed waxaa la gaaray wuxuu jeclaanayaa noloshuu jeclaanayaa markuu arka qeybkiisa isboortiga dheelaya markuu qeybkiisa dabaasha dheelaya meesha yani waxay yani wax walbay leedahay waa aragteen maxaa la dhahaa ii sheega viva waxay tiri number 8 aan haysanaa bay ku tiri wasiir khadiija ma fahanti marka dabaashi orodadii waa la boodayaa ma fahante yani waxaan lahaan jirnay niman runtii aan caadi ahayn ya cabdulla waa suge ya orodyaha yani bootintii africa annagaa haysan jirnay soomaaliya nin nagu dhamaama leh ya waa suge nin la dhihi jiray allah raxman raaximiin iisoo qora allah u naxariista dheh cabdulla nuur waa sugaa la dhihi jiray ya africa wuxuu ahaa the best one biladuu kasoo qaadi jiray marka dabaashayaa ku taalo bootintiyaa ku taalo orodkiyaa ku yaalo wax walba iskugu jirtaa marka yani boodhigi iyo maxaa dhismaaya wiilashii jaadka cunayaa la weynaa wiilashii balwada lahaayaa la weynaa wiilashii yani wax dili jiro al-shabaabaa la weynaa
runtii maxaa noo dhismay marka maxaa noo dhismay ummad dhan badbaadinteeda noo dhisantay maxay noo dhiseen marka khayre inuu maanta wiilka dhalanaya ya mustaqbalkiisa ilaa iyo 100 sano uu ka gaaro inuu khayre uu khayre u dadaalo maxaa keenay cabdishakuurna inuu wiilka inuu xabadda isku dhufo inuu dhaho runtii labadaas aragti waaye khayrana wuxuu u dadaalayaa wiilkaas 100 sano oo soo socota inuu noolaado uu farxad ku noolaado cabdishakuurna wuxuu leeyahay maxaa cunugan farxad u sameynaa muu isqarxiyo marka labada aragtidaas kala wadato waxaan rabnaa annaga inaan madaxii ka noqono runtii ka sheegno xaqiiqdii ka sheegno ya ninka nolosha nala rabo oo wiilkaaga wiilkiisa kaa rabo iyo kan rabo inuu cunadkaagii gablamiyo because استاذي كوني وحوير فرحت ما هو يري الشباب هلا دغالمو يري طبعا الشباب هلا دغالمايا الشباب تلا دغالمايو وليبا سي هابيسانو بورجيد هلا اي ku dagaalamayaan mideeda kale dawladda iyo wadan kastaba markuu dagaal galayo ma aha inay media laga sheego ma aha in blanka oo dagaalka lagu galayo in media laga sheego ma aha mafaan marka waxyaalaha uu u rabo al-shabaab waxa waaye wiilka yare dhalinyarada jaamacadda dhiganay wuxuu rabaa wiligiisba markuu soo kaco inuu dhinto asaga wuxuu rabaa marka inuu imaaraad lacag nooga qaato imaaraad meeshaas ay nagu kuusaan marka bal cabdishakuur ya iyo ninkaas adeerkiisa cabdiqaasin labadaas yaa Soomaali kula ah cabdiqaasin markaa aragtid waxaa soo xasuusanaysaa Soomaalinimadii soo xasuusanaysaa laakiin cabdishakuur markaa aragtid ya 14 qarixii October kugu soo dhacayo sababta u soo qaadanayo waxay tahay waayo cunuga Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool maanta farxadiisu uu hor taagan yahay uu ku yiri inuu farxa ma aha isbartiibada waa aragteen maanta si loo farxay khayra ka qudbeeyay maanta waxaan arkayay gabdho Soomaaliyeed oo ku ooynayo intaas oo sano isbartiibada ma arkin iyo wiilalba marka aada uga xumahay meesha business soo noqonayo isbartiibada horteeda waxa lagu gadi jiray luwaanta daandeyda cabitaanka jalaatada wax walba businesska lagu gadi jiray horteeda wax lagu cabi jiray wax walba lagu gadi jiray marka dadka xaafada degan runtii waxa u soo hooyatay business ma fahanti marka intaasoo bilyan oo qofood meeqa kun oo qofood shaqo helayso meeqa kun oo qofood isbartiibadaas waardiyeynayso marka waxaan jeclaa ciyaarihii markii la dhiso ciyaarihii gobolada lagu aadiyo haddana ciyaarihii